Anigu aad ayaan u jeclahay, ayadana aad ayay ii jecleed mar walba oo ii dhoola caddeyso. Waxaan islahaa waxa ay noqon doontaa gabadha keliya oo aad u dhixi doontid. Waqtigeyga inta ugu badan ayada ayaan ku bixi jiray. Muddo 2 sano ah ayaa waxaa naga dhexeeyay xiriir saaxiibtinimo oo aad u qurux badan. Inkastoo aanan la gaarin miraha jacaylka kuwooda ugu xiisaha badan, haddana waxaan ahayn 2 qof oo aad u saaxiibo ah. Waxaan isla soo qaadanay waqti fara badan, laakiin anigu qalbigeyga waxaa ku weynaa ereyga jacaylka. Muddo ayay igu qaadatay inaan u sheego ereygaas jacaylka, kaasi oo qalbigeyga ka soo go'ay. Waqti walba oo aan arko oo aan islahaa goormaad u sheegi doontaa ereygaas jacaylka, aad ayaan ugu nixi jiray wejigeeda markaan arko, waana ka xishoo jiray. Laakiin waxaan ahay mid ereyada jacaylka ay saaxiibo la yihiin. Mar walbana waxaan iska dhaadhici jiray in maalin qura aan u sheegi doono jacaylkeyga. Taladaydu sidaas ayay ahayd. Guusheennuna waxay ahayd mid miro dhali doonto. 2 sano kadib ayay igu qaadatay siman inaan u sheegto jacaylkeygii quruxda badnaa. Habeen ka mid ah ayaan dhahay, Simaney, caawa waxaan rabaa in aan kuu sheego wax qalbigeyga ka soo go'ay. Waxaan jeclaan lahaa haddii aad maqashid inaad iga aqbashid. Siman waxay ahayd gabar qurux badan oo joog qurux badan oo Ilaahay siiyey. Wax urinta waa ay u dhalatay ereyada quruxda badan ee ka soo burqanayo. Haddii aad aragtidna aad ayaad ula yaabaysaa. Siman waxa ay durbaba qalbigeeda gelisay in saaxiibkeeda caawa uu soo wado erey qurux badan, kaasi oo ah in labadooda ay darsaan ama saaxiib ay noqdaan. Siman ayadana gooni ayaa loo hayaa oo waa bukaan, oo ereyada jacaylkana dhankeeda ayuu ka hayaa, wayna soo sheega laadahay. Saaxiibkeed waa uu bilaabay, wuxuu dhahay, ugu horeyn waan ku salaamay. Salaan kadib waxaan jeclahay inaan kuu sheego ereyga jacayl, kaasi oo ah inaan ku jeclahay muddo 2 sanana aan kaa qarinayay. Siman aad ayay u faraxday, waxayna dhahday, anigu xataa sidoo kale ayaan kuu jeclahay. Asigana aad ayuu u farxay. Markaas ayuuna dareemay in jacaylku yahay murugo iyo macaan. Qofka aad jeceshahay sikin iska daay, saacada xataa inaad moogaato aad ayay kuugu adkaanaysaa. Mar walbana waxaad jeceshahay inaad la joogtid oo waqti aad la qaadatid. Jacaylku halkaas ayaan ku soo afmeerayaa sheekadii xanuunka badneed. 2 sano ayaan ku wada soconay si saaxiibtinimo ah, laakiin 2 sano kadib xiriirkii jacaylka ayaan u sheegtay. Maxaa dhacay? Waxaad ka daawanayseen barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24. inta aan ku kulmi doono warbixin noocan oo kale ah. Nabadgelyo.